السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا maanta waxaynu kaga hadli doonaa 8 dabeecadood oo aad milyaneer ku noqon karto si dhaqso ah. kow joogtee wax akhriskaaga. Taajiriintu waxay mudnaanta koobaad siiyaan wax akhriska halkii uu lacag kaliya ka fikri lahaa. Sida uu qoray Brian 88% taajiriintu waxay 30 daqiiqo ama in ka badan ku bixiyaan maalin kasta wax akhris. Intooda badan waxay wax u akhriyaan sida ay u kororsan lahaayeen aqoon ee kama ahan madadaalo. Dadka hodanka ah waxay akhriyaan 3 nooc oo buugaag ah: taariikh nololeedka dadka guuleystay, buugaagta ka sheekeeya horumarka shakhsiga ah, iyo buugaagta taariikhda ah. 2 jimicsigaaga badi. 76% dadka hodanka ah waxay jimicsi sameeyaan 30 daqiiqo ama in ka badan maalin kasta. Jimicsigu wuxuu noqon karaa orodka, dabaasha, socodka ama wax kasta oo caafimaadkaaga iyo jidhkaaga dhisaya. Jimicsigu wuxuu kobciyaa neerfaha maskaxda. Jimicsigu wuxuu kaloo kordhiyaa soo saarka glucose. Glucose waa sonkorta shidaalka maskaxda. Shidaal badan oo aad quudiso maskaxdaada waxay dhashaa midho dhal wanaagsan. 3 la fadhiiso oo saaxiib dhow ka dhiga dadka guuleystay. Waxaad la aragti tahay 5 qof ee kugu hareeraysan had iyo jeer. Isha ku hay shakhsiyaadka higashada leh, rajada fiican leh, xamaasadda leh, fogaan aragga iyo mustaqbalka nuuraya leh. Geed dheer ka fuul kuwa rajo xumada iyo baasaysiga badan. 4 ku tabaruc aqoontaada, maalkaaga, muruqaaga iyo si walba oo dadka kale uga caawin karto. Si aad ula noolaato dadka wanaagsan ee wada guuleystay, ku bixi qayb ka mid ah waqtigaaga caawinta dadka kale. Way kuu baahan yihiin, ha sugin intay kuu sheeganayaan baahidooda. Adigu bilow, hana ka raadin abaalgud. Waa calaamadaha lagu yaqaan milyaneerka. Waa shakhsi aaminsan iskaa wax u qabso oo u roon dadka kale. Waa sababta dad badan oo hodan ah ay iskaa wax u qabso ugu shaqeeyaan ururka samafalka una abuuraan kooxo ganacsi ah. Tani waxay kaa caawinaysaa inaad noolaato nolol heer sare ah oo farxad iyo qanaaco dhammaystiran leh. Milyaneeradu waxay ku tabarucaan 5 saacadood ama in ka badan bil kasta. Muhiim ma aha inaad lacag ku tabarucdo. Imise hibo, karti iyo aqoon aad leedahay ayaad ku caawin kartaa una faa'iideyn kartaa dadka kale. Isku jawaab adigu. 5 isxasuusi riyadaada mar walba. Riyadaadu waxay qeexaysaa noloshaada mustaqbalka. Adigu isku rumee riyadaada marka hore. Aamin inay macquul tahay. Dadaal yarna ku xigo rumayntaada riyooyinkaada. Riyooyinkeena oo dhan waa run, waana macquul haddii aynu u hawlgalno. 61% milyaneerku wuxuu leeyahay riyo istaraatiijiyadaysan iyo qorshe cad oo uu ku hawlgalo. Ma garan karo riyadaada, laakiin waxa hubaal ah inay macquul tahay. Riyo noocee ah ayaad ka leedahay nolosha? Isku jawaab adigu. 6 ku soco himiladaada. Raacitaanka riyadaada iyo himilooyinkaaga ayaa abuura farxadda ugu weyn iyo guusha mustaqbalkaaga. Inkasta oo dadka badan ay raacaan himilada dadka kale sida waalidkood iyo saaxiibadood, haddaba natiijada ka soo baxaysa halkaas ma ahan hanti kugu filan. Dadka hodanka ah waxay qeexaan hadafyadooda, waxayna dabagalaan ilaa ay gaadhaan halkay rabeen. Qeex hadafkaaga oo raac u noqo himiladaada. Waalidkaa ma oga wax kuu suurtagal ah adiga, kaliya waalidkan waan jecelnahay. 7 seexo ugu yaraan 7 saacadood habeenkii. Hurdadu waxay muhiim u tahay guusha. Daraasad la sameeyay 89% milkiilayaasha iyo dadka hodanka ah waxay seexdaan 7 saacadood iyo in ka badan. Hurdadu waxay kobcisaa maskaxda, xasuusta iyo caafimaadka jidhka. 8 goor hore kac. Kalahaada ku dhawaad 50% milkiilayaasha iyo dadka hodanka ah waxay kacaan hiirta waa bari. Dhammaantoodna waxay toosaan ugu yaraan 3 saacadood ka hor inta aysan shaqadoodu bilaabmin. Hiirta waa bari waa istaraatiijiyad lagula tacaalo nafta, laguna qoondeeyo waxqabadka maalinlaha ah. Waa lama huraan inaad aroorta hore kacdo. Waa kugu ceeb haddii digaagadu kaa hor saaxato kaana hor kacdo. Kac 5 aroornimo. Waxay ku siinaysaa kalsooni aad runtii naftaada ku hagto iyo noloshaadaba. Fikradaadu waa muhiim. Intaas ayaan ku soo koobaynaa maanta mawduucani. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.